بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada waa mar kale macal abqari youtube channel aniguna waa Ustad Abdinuur Maxamed Samatar Ustad Abqari maanta waxaan idin wadnaa buugtii vocabulary ahaa buugiisii koowaad oo loo yaqaanay 4000 essential English wordska waxaa sida caadiga ahayd nooga socotay channelka qaybo kala duwan oo luuqada Englishka hadda waxaynu maanta insha Allah idin soo gudbin doonaa buugga loo yaqaano 4000 essential English wordska buugiisii koowaad oo buug ilaa 6 ka kooban sida caadiga ah Abqari online academy ayaan ku bixinaa oo cid u baahan waxay naga helaysaa 6da buug oo dhameystiran macal fiidiyadooda dhan oo dhameystiran macal buugtina oo helaynaa markaas lacag uu iska bixinayaa laakiin qofka daneynaya YouTube ku si toos uga la socon karaa afarta saac isbuucii baan iraahdo hal ama laba la soo geliya laakiin qofka daneynaya inuu dhammaan buugtan wada qaato wuxuu ka heli karaa Abqari online academy numberka WhatsApp-ka ee ku qoran meeshan ayaad nagala soo xiriiri kartaa marka qaybo kala duwan ama course kala duwan oo luuqada Englishka ayaan bixinaa sida caadiga marka ku soo dhawaada macal Abqari YouTube channel sidoo kale ku soo dhawaada Abqari online academy waxaad ka helaysaan barashada luuqada Englishka qaybaheeda kala duwan cidiina la socotay aad ugu mahadsan tahay subscribe-ta iyo share-ta iyo maaragtay like-ta hore noo siisay oo uga mahad celinayna sidoo kale dhiirigelin noo noqonaysa insha Allah inaad u sii share gareysaan bulshada kale Soomaaliyeed ee daneynaysa barashada luuqada Englishka subscribe-tan ardada cusub ama dadka cusub ee nagu soo biirayana waa si casharada joogtada oo helaan waxaan jeclaan lahayn inay kana codsanayna waliba dhiirigelinayna noo tahay si aan maaragtay casharada iyo duruusta u soo badino inay subscribe noo dhahaan like-tana noo saaran insha Allah share-tana sidoo kale sida bulshada kale u gaarto waa halkan waa macal Abqari YouTube channel maanta waa 4000 essential English words buugga koowaad unitkuna waa unitka 14aad marka insha Allah la soo casho wanaagsan buugga unitka 14aad waaye wordless 20 ka eray ayaa macnaynayna buuggu wuxuu sameynayaa eray kasta dhawaaqiisa ayuu qoraal ahaan u dhigayaa noun ama verb ama adjective waxa loo yaqaan 8 part of speech midku ka yahayna wuu qorayaa gaaban sida n meesha ku qoran tahay der waa noun waaye control na v ayaa laga wadaa description na n qoran oo noun marka waa xarfii 8 part speech la soo gaabshay ayaa loo isticmaalay balse intaanaan u gelin sharaxaada iyo macnaynta aynu dhageysanaa awalan insha Allah Unit 14 Word List Coach. A coach is a person who teaches sports. My coach gets very excited during games. Control. To control something is to make it do what you want. To control the TV, just push the buttons. Description. A description of someone or something says what they are like. I gave a description of the man with the gun and hat to the police. Direct. If something is direct, it goes straight between two places. The green path is a direct route to my house. Exam. An exam is a test. I did some practice questions for the math exam on the board. Example. An example of something is a thing that is typical of it. Cola is an example of a soft drink. Limit. A limit is the largest or smallest amount of something that you allow. My mother put a limit on how much I could use the phone. Local. If something is local, it is nearby. The local market in my neighborhood sells all the food we need. Magical. Magical describes a quality that makes someone or something special. The fireworks made the night sky look so magical. Male.
Mail is letters and other things sent to people. I get a lot of mail because I have friends all over the world. Novel. A novel is a book that tells a story. He wrote a great novel about ancient China. Outline. An outline is the plan for a story or essay. Before I wrote my essay, I made an outline. Poet. A poet is a person who writes poems. William Shakespeare was one of the greatest poets. Print. To print something is to put it onto paper. Make sure that you print your name clearly. Scene. A scene is one part of a book or movie. A movie is made up of many short pieces or scenes. Sheet. A sheet is a thin, flat piece of paper. I only needed a single sheet of paper to do my homework. Silly. If someone or something is silly, they show a lack of thought. I made a silly mistake of dropping Mom's vase. Store. A store is a place where you can buy things. I picked up a few things at the grocery store. Suffer. To suffer is to feel pain. Her headache made her suffer all day. Technology. Technology is new things made by using science. He loves technology, such as laptop computers. inta waxaa inoogu dhan dhegaysashada unitka markan aynu sharaxna insha allah. ereyga ugu horeeya coach waa tababare. Coach waa tababare. A coach is a person waa shakhsi who teaches kaasoo bara ama dhiga sports. Coach waa tababaraha ciyaarta ama teamka u ah tababare ayaa la yidhahdaa coach. My coach gets very excited during the games. Tababareygu aad ayuu u farxaa ama aad ayuu u xamaasadaysan yahay inta lagu guda jiro gameka ama ciyaaraha. Control waa maamulid. To control something inaad wax maamusho ama kontrolsho is to make it do waa inaad samaysaa what you want waxa aad doonaysid. To control the TV ama television si aad u maamusho ama u control televisionka just push waxaad riixdaa the buttons badhamada riix. Si ama u dheerayso ama u gaabiso ama u damiso badhamada riix. To control the television just push the buttons. So controlsho u maamusho riix badhamada. Description waa sifayn ama tilmaamid waaye. Description waa sifo qof inaad sifayso ama tilmaantood qeexdo. Waxaa la yidhi marka a description of someone or something inaad qof ama wax says aad qeexdo ama tilmaanto what they are like waxay yihiin. I give a description of a man waxaan siiyey tilmaanta nin with a gun qoray watay and had you coffee to the police. Waxaan booliiska siiyey tilmaan ama sifo aan sifaynayo the man ninka with a gun qorayga wata and the hat iyo koofida to the police. Nin qoray wata koofina wata ayaan u tilmaamay oon anigu arkay booliiska. Direct waa toosa. If something is direct hadday wax toos yihiin it goes straight waxay u socdaan si toosa between two places laba goobood dhexdooda ayay si toosa shaygaas straight waa direct waa toos waa. The green path wadada cagaarani is direct route oo wada toosa to my house ee gurigayga tagta. Exam waa imtixaan. An exam is a test. Imtixaanku waa imtixaan ama waa test. I did some practice questions. Waxaan sameeyey su'aalo aan ku practiceynaya practice questions for the math exam imtixaanka xisaabta on the board ayaan ku sameeyey sabuurada dusheeda. I did waxaan sameeyey ka shaqeeyey some practice questions su'aalo practical for the math exam imtixaanka xisaabta on the board ayaan sabuurada. Example waa tusaale ama sample.
An example of something tusaalaha wax is a thing waa shay that is typical of it oo noocii shaygii ah. A cola cabitaanka la yidhaha is an example of soft drink waa nooc ka mid a cabitaanada fudud waaye. Example marka waa sample ama tusaale. Example waaye tusaale. Limit waa xadadid. Limit waa xadadid. A limit is the largest or smallest amount or smallest. A limitku is the largest or smallest amount of something. Waa cadadka ugu badan ama cadadka ugu yar wax that you allow aad ogolaato. Mamada waa hooyaday put a limit on waxay iga xadaday how much I could use the phone intaan isticmaali karo telefonka. Put a limit on how much I could use a phone. Kawsaqad nusac kale isiisay kama badsan karo kadib iska dhigaya macnaha. Mother put a limit waxay iga xadaday on how much I could use the phone intaan isticmaali karo telefonka. halkani waa Macalin Abqari YouTube channel. Fadlan waa nala socon kartaa cidii hore nala socotay cidii cusubna fadlan share garay subscribe garay si maaragtay casharadii duruusa ay maaragtay insha Allah wada hesho loo sii joogtaa. Local waa gudaha waaye. If something is local it's nearby waa wax markaas dhow waaye. Dhowaansho ama gudaha. The local market in my neighborhood sells suuqa ii dhow ama local gudaha ah in my neighborhood dariskayga sells ayaa iibiya all the food we need dhammaan cuntada aynu u baahana. All the food dhammaan cuntada we need aynu u baahana. Magical oo la xiriira sixir ama wax tayo leh. Magical describes a quality. Magical wuxuu qeexayaa tayo that makes someone qof sameeyo ama something wax special. The fireworks waxaa loo yaqaan baashaan rashka la yidhaahdo kor loo rido ama buloleerka la yidhahda fireworks. Xilliyada sanadka cusub iyo ama la isticmaalo ciidaha. Fireworks made the night sky wuxuu ka dhigaa habeenka hawada look so magical mid cajiib ah ama tayo leh ilaa iftiina hawada loo diraya sama. Mail waa boosto. A mail is letters waa waraaqo ama other things ayaa kale sent to people that loo diro. I got a lot of mail waxaan helay boostooyin fara badan ama waraaqo fara badan because I have friends waxaan dunida ku leeyahay all over the world. I have friends all over the world. Dunidoo idil ayaan asxaab ama saaxiibo ku leeyahay waaye. sidaa daraadeed boostooyin fara badan ayaan helay ama warqado fara badan. Novel waa buug la qoro buug sheeka inta badan ee la novel. A novel is a book waa book that tells a story ka hadlaya ama sheegaya sheeko. He wrote a great novel wuxuu qoray buug aad u weyn ama buug aad u wanaagsan about ka hadlaya ancient China dadkii hore oo Chinese-ka ahaa. Outline waa hordhaca book ama essay ama report laga sameeyo. An outline is a plan waa qorshe for a story and essay ama sheeko ama essay la qoro. Before I wrote my essay intaanan qorin essaygayga I made an outline waxaan sameeyey hordhac outline ama dulmar haddii kale dulmarna waa la yidhahdaa. Poet waa gabayahan. A poet is a person waa shakhsi who writes poems kaasoo qora gabayada. William Shakespeare ninka la yidhaahdo was one of the greatest poets wuxuu ahaa mid ka mid a gabayahanadii ugu weynaa ayuu ahaa. Print waa daabacid inaad wax daabacdo. To print something inaad wax daabacdo is to put it on a paper waa inaad warqad wixii dusha ugu qorto macnaha mashiin ku soo daabaco gudaha ku jira qoraalka inaad daabacdo banaanka soo dhigto print waa. Make sure hubi ama xaqiiji that you print your name clearly inaad u qorto ama u daabacdo si cad magacaaga. Scene waxaa la yidhahdaa goobta dhacdo ay ka dhacdana waa la yidhahdaa. Marka filin wax la duubayana filinka marka la duubayo hal mar filin lama duubee marba qayba loo duubay qaybtaasna scene waa la dhahaa. Marka a scene is one part of a book waa qayb ka mid a buugga ama movie film la dhahaa. A movie is made up of many short pieces. Qaybo yaryar ayuu ka samaysan yahay filmku ama scenes. Sheet warqad waaye
marna go ayuu noqdaa micno badan yeelan karaa. A sheet is a thin flat piece of paper. Waa gabal yar oo warqada. I only needed a single sheet of paper. Waxaan u baahnaa kaliya hal warqad to do my homework. Aan uga shaqeeyo homeworkayga. Silly waa xun. If someone or something is silly, haddii qofi ama waxay silly yihiin, they show waxay muujinayaan lack of thought, fikir la'aan. I made a silly mistake. Waxaan sameeyay qalad xun of dropping my mom's face. Oo ah inaan jebiyey dropping, sii daayay, iga fakaday. My mom's face. Face waxaa la yidhahdaa bahal yar oo ka samaysan dheri yar oo inta badan ubaxyada lagu dhex abuuro lagu sameeya bahal yar la yidhahdaa. Marka ayaan si qalada u sii daayay waay. Store waa dukaan. A store is a place or goob where you can buy things. Aad waxyaabaha ka iibsan karto. I picked up a few things. Waxaan soo qaatay dhowr shay at the grocery store. Dukaanka wax lagu iibsho grocery store ayaa la yidhahdaa. Dukaanka ayaan kasoo iibsaday. Suffer waa xanuun dareemid ama xanuunsasho waaye. To suffer is to feel pain oo ina xanuun dareento. Her headache oo madax xanuun made her suffer all day. Madax xanuunka ayaa qandho ku hayay. Made her suffer all day ayaa sabab ahaa inay maalintii dhan qandhato macna ama qandho dareento. Technology waa teknolojiyada. Technology is a new thing waa shay cusub made by using sense. La sameeyo la isticmaalayo sayniska. He loves technology. Wuxuu jecel yahay teknolojiyada such as sida laptop computers, kombiyuutarada laptopska. Intaas waxaa inoogu dhan 20 erey oo aan macnaynay. Kusoo dhawaada halkani waa Macallin Abqari YouTube channel. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo share garay. Haddii aad hore noola joogtana fadlan, iyo haddii aad nagu soo biirtaba sharta iyo laagta lagu dadaalo si bulshada kale oo danaynaysa ay u gaaraan. Ustad Ustad Abqari wadan leh siyaasi nabadgelyo. Billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.